haddiiba daawad lagu weydiin lahaa waa kuma taariikhda aadamaha inta la ogyahay qofka ugu maalqabeensani maxaad ku jawaabi lahayd waxaa markhaati madoon ah oo hubanti ah inay maskaxdaada ku soo dhacayaan inaad ku jawaabto shakhsiyaadka ay ka midka yihiin Bill Gates, Rockefeller, Warren Buffett iyo Carlos Slim oo intuba ay yihiin shakhsiyaadka ugu maalqabeensan uguna magaca weyn dunidan casriga aynu ku noolahay. haddaba daawada waxaynu wadaagi doonaa oo aan ku hayaa sheeko umuurahaasi oo dhan ka duwan waxaanaad kaga bogan doontaa barnaamijkeennan jawaab u helista su'aalahaasi aan idinku jalbeebay ama maankii nabagaday. haddaba sida ay soo warinayaan taariikhyahanada adduunku shakhsiyaadkii ugu maalqabeensanaa dadka inta Ilaahay ku galladay maalka waxaa foolaad u ahaa boqorkii islaamka ahaa ee lagu magacaabi jiray Mansa Musa waxa uu boqor ka ahaan jiray boqortooyadii weyneed ee Mali ee hilaadii 1312 ilaa 1337 boqortooyada Mali oo ka talin jirtay dhulka loo yaqaan saaxil waa halka ay iska galaan dhulka saxaraha waqooyiga Afrika iyo kaymalayda Afrikada dhexe waxay sidoo kale awoodeeda maamul ku fidsanayd ilaa galbeedka Afrika iyadoo ay buucdeeda maamul ahayd dhulka haatan uu ku yaalo wadanka Mali. arrinta cajabta mudan ee sida weyn u soo jeedatay taariikhyahanada reer galbeedka iyo kuwa Carabta waxa ay noqotay sheekada ku duugan intii uu ku guday jiray safarkiisii dheeraa ee uu kaga xidhxidhanayay wadanka Mali uguna sii jeeday magaalada Burakaysan ee Maka al-Mukarrama sanadkii 1324 si uu soo guto waajibaadka xajka. boqor Mansa Musa xilligaas uu safarkiisa ku jiray waxaa lagu qiyaasay hantida ama maalka uu sahihaan u siitay lacag haatan imika u dhiganta 400 oo bilyan oo dollar. arrinkaasi isweydiinta mudanse waxa uu yahay maxaa keenay inuu qaato maalka intaasi leeg haddiiba uu ku jiray safar muxuuse ku sameynayay. Mansa Musa waxa uu ahaa mid isagoo musaafir ah meel kasta uu sii marayay ka dhisayay masaajido guryo uu danyarta u dhiso caawinta dadka aan waxba haysan iyo bixinta sakada. waana arrinta sida weyn u soo jiidatay qorayaasha reer galbeedka iyo kuwa Carbeed ee waagaasi noolaa. boqortooyada Mali oo awoodeeda maamul gaarsiisneed wadamada Mauritania, Senegal, Gambia, Ghana, Burkina Faso, Mali, Nigeria iyo Chad waa boqortooyadan laxaad kale waxay dhulkeeda ka talin jirtay lagu qiyaasa masaafo ku eeg 2,000 oo mayl oo laga soo bilaabo xeebaha galbeed ee Afrika ee kulaalaya badweynta Atlantiga ilaa galbeedka iyo bariga harada Chad ee bartamaha qaaradda Afrika. Mansa Musa oo ahaa boqor naftiisa iyo maalkiisaba u hibeeyay islaamnimada. Mansa Musa markii uu diyaar garoobayay inuu soo guto waajibaadka xajka waxa ay ku qaadatay sanado dhowr ah si uu safarkiisa iyagoo ay safarkiisa ku wehelinayaan sida ay sheegaan taariikhyahanadu shaqaalihiisa gaarka ah oo lagu qiyaasay 60,000 oo qof kuwaasi oo gadhka hayay hoggaanka ilaa 80 awr oo mid waliba uu sido ama ay ku raran yihiin dahab lagu qiyaasay 300,000 oo kilogram. sidoo kale waxaa safarkiisan qayb ka ah oo ku wehelinayay boqorkan adoomo ay taariikhyahanadu ku sheegaan 12,000 oo qof kuwaasi oo masaafada socodka ay galayeen ay ahayd 4,000 oo mayl. arrimaha cajabta mudan ee lala yaabay waxa ay dhaceen markii uu boqor Mansa Musa gaadhay wadanka Masar oo marinkiisu ahaa gaar ahaan magaalooyinka Qaahira iyo Alexandria isagoo wixii uu dahab iyo hanti uu sitay u qaybiyay dadkii danyarta ahaa iyo qof kasta oo la kulma isagoo kuna soo wareegay wadooyinka iyo xaafadaha magaalooyinkaasi si uu ugu dhugmo yeesho xaaladda nololeed ee bulshada muslimiinta ee halkaasi ku noolayd. sidoo kale Mansa Musa waxa uu bilaabay inuu masaajidda ka dhiso iyo guryo ugu talagalay dadka danyarta jimce kasta halka uu safarkiisu ku soo beegmo. deeqsinimada xarkaha goosatay iyo caawinta fuqarada Mansa Musa waxa ay dhaxal siisay inay aad ula yaabaan taariikhyahanada Carbeed iyo kuwa reer galbeedka iyagoo markii dambena ula magac baxay haldoorkii caalamka waa qarnigii waagaasi la joogay kuwaasi oo si weyn wax uga qoray foolaadna uga dhigay qaamuusyada dhaxal reebka taariikhda aadamaha. kadib markii uu Mansa Musa ku soo noqday dhulkii uu carshigiisa boqortooyadu yaalay waxa uu la soo guryo noqday aqoon-yahano iyo injineero fara badan oo ka soo kaxaystay caalamka Carabta si ay ugu caawiyaan dhismaha qalcadaha goobaha waxbarashada iyo madaxafyada lagu kaydiyo taariikhda islaamka. arrimahaasina waxay dhabeeyeen riyooyinkii boqor Mansa Musa ee uu in magaalooyinka Gawa iyo Timbuktu ay noqdaan
kuwa hogaaminaya aqoonta iyo xadaaradaha iyo nolosha dhaqandhaqaale ee caalamka iyadoo ay bulshooyinka xilliyadaasi ku noolaa Yurub waqooyiga Afrika iyo qaaradda Asia ay soo aqoon iyo ganacsiba doonan jireen boqortooyada Mali gaar ahaan magaalooyinka Timbuktu waagaasi oo xuduun u ahayd iyo ubuucda dunida kaleba waxaana ilaa maanta laga soo arki karaa oo weli ku yaala waddankaasi Mali xadaaradii faca weyneed ee Umasa Muuse waagaasi ka qotomiyay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen masjidka Chinguar oo ku yaala jaamacadda Timbuktu iyo masjidka Yaxya iyo masjidka jaamaca isbarkan ee magaalada Maragagwa iyo goobo kale oo taariikhiya intaasi waxa dheeraa inay weli halkaasi ku yaaleen librariyada iyo maraajiicda cilmiga 1337 waxay tii Alle u timi oo geeriyooday boqor Mansa Musa oo ahaa ninkii dhidibada u taagay xadaaradda faca weyneed iyadoo uu xukunkiina la wareegay inankiisii Maghan kaasi oo noqon waayay sidii aabihii oo kale halkaasina waxaa ku soo afbeeshay taariikhdii iyo nidaamkii boqortooyada Mali taas oo talinaysay horaantii qarnigii 12aad ilaa bilowgii qarnigii 17aad oo ku siman muddo 5 qarni